Khuuradu waa cod uu sameeyo qofka jiifa markii uu ka neefsanayo afka iyo sanka. Khuuradu waxa ay dhacdaa markii hawadu aysan si halaasi ah uga gudbin marinada hawada, taasoo keenaysa inuu samaysmo codka khuuradu. sidaa daraaddeed marinada hawada ee sanka waxaa carqaladayn kara dhowr waxyaalood oo ay ka mid tahay qolfo ama hilib sanka ku samaysma iyo qaabka qofku u jiifa iyo dhibaato caafimaad. hadday ku tahay marka kugu horeysay aad soo booqato Omar Oscar Official, fadlan subscribe noo saar, waxayna tahay dhiirgelin. barnaamijka xogta caafimaadka la soco maalin walba, ku xirnaa Omar Oscar Official. haddaba daawada wax dhibaato caafimadeeda uma keento qofka sameynaya khuurada, laakiin waxa ay saameyn ku yeelataa lamaanahaaga, qoyskaaga iyo dariskaagaba, taasoo u diida hurdada. sidaa daraaddeedna khuuradu mararka qaar waxa ay keentaa neef joogsiga hurdada, waana marka neefsashadu ay joogsato mararka qaarkood marka la hurdo, taasoo qofka ka soo toosisa habeenkii hurdada marar badan. calaamadaha kale ee lagu garan karana waxaa ka mid noqon kara maalintii oo hurda ku qabato iyo adiga oo weli daalan marka aad soo toostid subaxdii. haddaba khuuradu waxay u dhaxay kartaa cod khafiif ah ama mid xoogan. qofkana inuu khuuriyo in loo sheego ma ahaane ma dareemo. waxyaabaha khuurada siyaadiyana waxaa ka mid ah miisaanka culus ee qofka, taasoo ka timaadha xaydh siyaado ah oo fadhiisata dhuunta iyo xubnaha ku wareegsan. dhinaca kalena da'da qofka ayaa ka qayb qaadan karta khuurada, waayo markastoo qofku weynaado iyo markastoo murqaha dhuuntiisu ay jilcaan, taasi waxa ay keenaysaa in ay gariiraan marka uu qofku neefsanayo isagoo hurda. sidoo kale dadka cabba khamriga ama isticmaalo kiniiniyada hurdada la xidhiidha iyagana waxaa ku timaada khuuro. sidoo kalena qofka oo duudka u seexda isagana waxa ay keentaa in carabkiisa uu gadaal u jaleecdo, islamarkaana cidhiidhi geliyo marinada hawada, kadibna khuuro halkaa ka dhalato. sidoo kalena dadka qaba hargabka iyo dadka qaba xajiinta ama xasaasiyadda iyaguna way khuuriyaan. haddaba daawadee sababaha kale ee muuqaalka ah ee keena khuurada waxaa ka mid ah dhanxanaga qaybtiisa jilicsan oo hoos u raaraacda, iyo quumanka oo aad u bararan, iyo dalqa aad u dheer, iyo sanka oo qaabdhismeedkiisu aanu caadi ahayn. sidaa daraaddeed nasiib daro ma jirto daawo hal mar joojisa khuurada, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo dadka qaar ay sameeyaan si ay u yareeyaan khuurada. inkastoo dadka qaar ka mid ah sababaha keena khuurada ay la xidhiidho qaab nololeedkooda, kuwaasi waa laga fogaan karaa. waxaana ka mid ah inaad cunto caafimaad leh, miisaankaagana aad yarayso. sidoo kale inaad jimicsi samayso si aad u adkaysid murqaha jidhkaaga oo idil. sidoo kalena waa inaad u jiifsataa dhinacaaga, kana fogaataa duudka inaad u jiifsato. sidoo kalena ha cabbin khamriga iyo maandooriyaasha kaleba. sidoo kalena waa inaad joojisaa sigaar cabbidda. midda kalena ee muhiimka waa inaad marinka sankaaga bannaysaa si aanad afka uga neefsan. haddii aad qabtid alerjina, qaado kiniiniyada ka hortaga, islamarkaana kala tasho dhakhtar arrimaha takhasus ku leh. ugu dambayntiina daaweynta qaliinka ah waxay timaadaa markii isbeddelka aad ku samaysay nolol maalmeedkaaga ay waxba ka qaban weydo khuurada. qaliinka waxaa lagu saxaa marinada hawada iyo in la baneeyo haddii ay jiraan wax xiraaya sida hilib cad ah oo kale. qaliinka ma keeno waxyeelo kale, maalmo gudaheedna qofka waa uu ka bogsadaa. haddaba khuuradu wax dhibaato ah kuma keenayso oo aan ka ahayn inay waxyeelayso xiriirka idiin dhexeeya adiga iyo dadka kula nool, laakiin neef joogsiga hurdadu waxa uu keenaa dhiikar, wadnaqabad iyo suuxdin mustaqbalka ah haddii aan la daaweyn. sidaa daraaddeed haddii aad isku aragto khuuro dheer, madax xanuun, daal hurdada ka dambeeya, iyo hurdada oo aan kugu fillayn, waa inaad la xidhiidhaa dhakhtarkaaga si laguu baadho daawona laguu siiyo.